Dahabshiil, your trusted financial partner. shirkadda caalamiga ah ee Dahabshiil Group oo muddooyinkan badeeqo kala duwan oo ay kaga qayb qaadanayso dadka ay abaaruhu saameeyeen ka waday gobolada dalka degmooyinka iyo deegaanada Soomaaliland ayaa maanta degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaaga ka daafurtay 70 boyadood oo biyo dhaamis ah kuwaasi oo ay kaga qayb qaadanayso gurmadka iyo taakulaynta dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan Garadag iyo deegaanadeeda deeqahan biyaha ah oo maanta si rasmi ah horaantoodii lagu kala diray deegaanba deegaanka uu ka jilicsan yahay si rasmiyana u wada gaadhay ayaa madasha deeqdan biyaha ah lagu daafurayay waxa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Dahabshiil Group ee degmada Garadag Maxamuud Xirsi Axmed kana warbixiyay deeqdan biyaha ah ee Dahabshiil Group bixisay sidoo kalena hoga tusaaleeyay muddada ay soconayso anigoo ka wakiila Dahabshiil Garadag ahna maamulaha shirkadda Dahabshiil ee Garadag waxaan maanta halkan ku wareejinayaa deeq biyaha oo ay soo dirtay shirkadda Dahabshiil Group oo uu wakiil ka yahay Cabdiraxmaan gudoomiyaha gobolka Sanaag oo aniga ii soo wakiishay anigu Maxamuud Xirsi Axmed waxaan markaa garabkayga taagan aan ku wareejinayaa maayirka degmada Garadag iyo gudida abaaraha ee degmada Garadag deeqdaas waxay ka timid Dahabshiil Group waa 70 booyadood weeye oo biyo dhaamisa waa 70 booyadood waxa loogu talagalay dadka abaaruhu ay halakeeyeen shirkadda Dahabshiil waxay ka mid tahay shirkadaha dareenka dadka la qaybsada ee dadkooda wax ku celiya aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa dhiirigelinta iyo la qaybsiga ay dadka la qaybsadeen aad iyo aad baan shirkadda uga Dahabshiil uga mahad celinaynaa barakallahu laka baan leenahay gudida iyo hadii la ka dhigo isxilqaantay ee iyaguna iskoo dadkooda ugu shaqeynaya ee xilliga u taagan oo ay 12 duhurnimo tahay oo ay biyo hore soo shubeen oo biyo dambe hadda ay u soo noqdeen gudoomiyaha iyo gudoomiyaha gudida abaaruna ay kormeer ka yimaadeen oo aanu xilliga halka ku qabanayno waxay u shaqeynayaan sidii ay dadka abaaraysan ay biyaha u gaarsiin lahaayeen 70 booyadood lacagtoodu waxay noqonayaan $12,000 weeye lacagta hadda ergaabo nala ku soo diray ee gudoomiyuhu uu noo soo diray Dahabshiil uu Garadag u soo diray waa $12,000 maayirka degmada Garadag Maxamed Cilmi Maxamuud iyo gudoomiyaha gudida abaaraha ee Garadag Cabdilaahi Suleymaan Boobe oo yana dhankooda madasha goobjoog ahaa ayaa si wada jir ah u bogaadiyay una mahadnaqay shirkadda caalamiga ee Dahabshiil Group deeqahan biyaha ah ee ay ku taakulaynayso dadka deegaanada Garadag ku sugan ee abaaruhu saameeyeen maanta ay tahay khamiis waxaanu ka qabanay shirkadda Dahabshiil deeqdii ay ugu tala gashay abaaraha oo ay Garadag ka heshay 11,000 qiimaha markii la rogayna lagu dhaaminayo 70 booyadood booyadahaasi laba isugu jiraanoo biyihii macaanana qaalib ay noqdeen biyaha u yeerka xoolaha la siinayaana intaa way kala difan yihiin marka la isku qaybiyay waxa lagu dhaamin doonaa gudidu ku dhaamin doontaa 70 booyadood oo ay macaanku ku yar yihiin laakiin biyaha xooluhu ay badan yihiin intaana waanu ka haynaa Dahabshiil waxaan leenahay shirkadda wax soo bixisay iyo dadka shaqeynaya kuwa degmada u shaqeynaya kuwa qaranka u shaqeynaya iyo kuwa gobolka u shaqeynayaba waanu uga mahad celinaynaa shaqada iyo deeqda ay u fidiyeen dadkooda abaaraysan waxaan leenahay dhammaantoodba jisaakallah khayr maanta waxaanu halkan kala wareegaynaa lacag dhan $12,000 oo u dhiganta 70 booyadood shirkadda Dahabshiil waan uga mahad celinayno Dahabshiil Charity Foundation runtii waxaan uga mahad celinaynaa deeqda ay soo gaarsiiyeen lacagta in yar hadaan saxo ama aan dib ugu noqdo waa lacagtaas waa 117 cadaana waxa loo dhiibay barasaabka wayna soo gaadhay percentage intii aanu ka helay oo ahaa 2% waxaan lacagta ka helay 25,740 baa hore noo soo gaadhay kotonkii kun ee harsanaa ee Dahabshiil uu bixiyay lacagta total ka dhigay gobolka 167 isagana kotonkii kun waxaan ka helay percentage marka loo rogo 2% loo rogo $12,000 totalka lacagta aanu anagu lahayn ee gudida abaaraha aanu ka doonaynay waxay ahayd 36,740 haddeer way noo dhameystiran tahay maadaama aan 12,000 ee Dahabshiilna soo gaadhay oo waxaanu halka ku haysanaa anagu aan waxba naga maqnayn degmada Garadag kulli gobolka iyo degmada iyo
waxbaa dee laysla dhex maraya waxbaa maqan oo waxbaa maqan annagu waxaanu degma ahaan caddaynaynaa oo aanu qof walba u caddaynaynaa lacagtii ay soo dhiibtay ee ay annagan aanu percentage-kii aanu ka helanay degma garadag ahaan inaan cid kale lagu xagxagan laakiin lacagtaas ay dhammaanteedna soo gaadhay maxamed gumburi telefishinka caalamiga ee bulsha TV garadag Story App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helaya adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahabshiil ee dunida taxalladeeda Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed